kulan baroordiiq ah oo lagu muujinayo sida Soomaalida Masar ay uga xun yihiin weerarka dadka badan lagu dilay ee isgoyska Zobe ee magaalada Muqdisho ayaa xalay lagu qabtay safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay magaaladan Qaahira. kulanka baroordiiqda ahi oo ay si wada jir ah u soo agaasimeen safaaradda Soomaaliya iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Masar ayaa waxaa ka soo qayb galay Cabdiqani Maxamed Wacays safiirka Soomaaliya u fadhiya wadankani Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Generaal Xasan Maxamed Muungaab gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir iyo qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkani dhammaan xukuumad iyo shacab iyo dadweyne waxa loo baahan yahay in la iskaashado la isgarabsado oo wax laga qabto dhibaatooyinkan soo noqnoqday aqli iyo wax lagu maqooniyay si lagu daweeyaba Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya oo ka mid ah dadka xalay ka hadlay baroordiiqda loo sameeyay dadka lagu xasuuqay Muqdisho 14 Oktoobar ayaa si weyn u amaanay falceliska shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waa ku faraxsanahay sida ay ugu gurmadeen sida isugu soo gurmadeen iyo qayla dhaanta ka baxaysa oo maantadaan u dambeysay madaxweynihii iyo prime ministerkii iyo rag badan stadiumkii inta la soo buuxiyey ay ka hadlayeen sida ay u gurmadeen sida meel walbo adduunka Mareykanka Australia meel kasta adduunka sida looga qayliyahayo oo dadku uu soo baxay waa arrin aad iyo aad qiimaheeda u leh weey Generaal Xasan Maxamed Muungaab gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ayaa dhinaciisa ka sheegay marka argagixisada laga adkaaday inay bilaabeen inay beegsadaan dadka shacabka ahi waxa uuna dadka waxyeelada ka soo gaaray qaraxa Zobe ugu yaboohay lacag gaaraysa $3,000 Mareykanka ah markii dawladeena Soomaaliya iyo hay'adaheeda ammaanka iyo shacabkii oo iskaashanayo ay ku guuleysteen in laga seefgareeyay xarumihii dawladda iyo meelihii muhiimka ah oo ayagana howlgallo isdaba joog ah lagu qaaday oo meelaha yar oo weli farahooda ku jiro dalka lagula beegsado lagu dhameeyay waxay maanta marka maciin bideen ayagana marka inay shacabka ka arkoostaan ee shacabka gumaadaan waxaan u deeqayaa dhalinyarta halkan iska xilqaamtay mashruuca guddiga badbaado maxaa gurmadka qaran lagu deeqay dadkii ku waxyeelooyay dhibaatadii ka dhacday Zobe $3,000 ayaan ugu deeqayaa oo insha Allah taala kamid ah Ayni Abuukar Gacal oo ku hadlaysay magaca haweenka Soomaaliyeed ee dalkani Masar oo ka hadashay kulanka baroordiiqda ee xalay lagu qabtay magaaladan Qaahira ayaa baaq u dirtay haweenka Soomaaliyeed wili lama sheegin kan dhinkayga waa al-shabaab waa naagtiri kan wiilkayga waa wuxuu soo wada balaayo maleego waaya naagtiri wili lama sheegin oo iso hal naag waan maqlay halkii naagna waa dawladda u gurmatay aniga waxaan aan meeshaanayta dhanbaa looga darayaa ama abiil uga samaynayaa hooyooyinka Soomaaliyeed inay ka toosaan waa jiifaan ha toosaan nin kaligiis wax ma qaban karo aabba kaligiis wax ma qaban karo jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadankani iyo safaaradda Soomaaliya ee magaaladan Qaahira ayaa gabagabada kulanka baroordiiqda isku raacay in la sameeyo sanduuq gaar ah oo lagu gurmanayo Soomaalida waxyeeladu ay ka soo gaartay qaraxii dadka badan ay ku geeriyoodeen ee ka dhacay magaalada Muqdisho 14 bisha aynu ku jirno Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira